أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمان بعد ددوينها الصوماليات أي ميل والبا أدونك إذا على ذلك نوله شنطة قارضة أدونك وعليه السلام يا دمان وعني ولالكينا أحبر في الصور قاسم محمد قاسم وحنا إذنكو السلام يا سلامة إسلامكو kuwii oo horay salan soo dhiibeen waxaan leeyahay wa calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maantaan barnaamijyo xiiso leh ayaa idin haya barnaamijyadaasaytona ay ku saabsan tahay qaasatan qaaradda annagan degannahay Africa iyo geeska Africa waddanka Soomaaliya aan joogno anaga haddii oo qurba joogta aan nahan oo dadka maaragtay dibadda joogo oo aan ka mid nahan waxaan warbixino idin hayna warbixino waaweyn oo taasi ay ku saabsan tahay xukunka keli taliyaha oo jooga Kismaayo horta ninkan waa nin keli taliya ah وأنا حكمك سأرى إنه وذو ددوينها أنا لما كاشنايو ولشو أنت الصوماليات وقاسة جوجا الرجو بلان يقول لك كاشة مدرتو دولة الفدرال كوحوس كيديجانين أو لشقايا نون لشقينين معها دولة الفدرال كدور جر لما سرقالي صدرتي جبلان إن أو حكا قبام واي أو سرقال كمكلا صدرون أو كل عرنايو وقارنا إنه ستيشنو يجيل كتحايو مركا تاسينا وحن أرقني إن كأدونيا فربضان أي كسوعتا دينا جدو يقرب بحري يدينا بحر ليرادو كأدون كاسنا تاسي تددك شعبوينا هاي كوكا إن إنسان معمول كيس يو جريتان كيس بان ربين warbixino oo maaragtay wadamada Africa de maaragtay qaasatan wadanka Jaalalanahan wadanka Kenya ay soo bixiyeen oo inay maaragtay agaxooda inay ka bixin doona meeshaas ay dawladda maamulka Jubbaland inaysan mar dambena in la kaashanin shacabweynaha Soomaaliyeed meesha joogana ay xukunkooda ay gacantooda ku maamusho dad muddo badan la soo midabta kooray 1960kii sida madaxweyne Abdullahi Farmaajo uu yiri dadkii la soo midabta kooray 1960kii ilaa hadda aan ku jirno waa 2028 xuquuqdooda la dusiyay muddo badanna wali xuquuqsan helin ilaa haddana waxa lagu taagan yahay midabta koor kubsi dhulboob ay ka socotaa Jubbaland Kismaayo qaasatan ilaa gidu garba dhulkaas ku socota warbixinahan waxay ku saabsan tahay Jubbaland qaasatan anigu taas kali kama dhirigsani asa professor ahaan anigu taas kali kama dhirigsani waxaan u baahanahay hadii ay dawladda Mareykanka ay taageerto arrintan oo midabta koorkii iyo keli taliyaha jirka ah meesha joogo in laba meelba dhaqaalihii laga xiro Kismaayo dikada laga xiro isan doon iyo maraakiib soo istaagin kani ha ku istaagto federaalka doonta Kismaayo soo socota Muqdisho ha soo istaago maraakiibta soo socda ama Kismaayo xamar lagu dajiyo iyo diyaarada garoonka diyaarada Kismaayo joogo ama ku taala inaysan diyaarad aysan jirin bayna meesha ka duulin ama diyaarad Nairobi soo socda ama diyaarad u socota xamar u socda ama meelaha kala duwan kale inaysan jirin waxaan u sheegayaa warbixintan uu gudbinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abdullahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xasan Cali Khayre waxa idin leeyahay ninkan haddaad rabtaan in aad hoos ka xirtaan waa in diyaaradaha Kismaayo ka soo degaysa garoonka waa in laga joojiyaa waa in doomaha maraakiibta ay badda ka soo degaysana ay ka istaagaysan laga dijiyo waa in laga joojiyo labada meelba horta uu ka tagay meesha ka soo qabta dawladihii oo maaragtay asagna charka la yahay oo isku dhowno oo maaragtay waxa isla xukumaana ama gacan ay egsiyaan dhan walba idan iyo hal laga xiro haddii idinka dacwadaas aad garsan kartaan
dacwadaas waxaa garsan kartaan waxaad geen kartaan wadamada adduunweynaha geeya dacwadaas kow dowladda maraykanka meesha dhow oo kamba military ku furan Kismaayo dhexdiisa u sheega inaysan ninkaanayto annaga aan u baahnayn sidiisba jiritaankiis ma rabno ninkan anaguna leeyahay 5 kursi badan siinay taasayto macnaheedu waxa waaye dad gadow iyo garbaxare iyo meel leeyahay bah inay ka adoon ay sameeyaan ka adoontii ayuu arkay dadkan annaga hadda way iga soo horjeedoono dadkii jubbooyinka jubbada dhexe ee jubbada hoose bal aan soo dhaweysto aan la xijalnimo aan ku abuuro si oo aniga aan ku helo maarta jiritaan ama dadka inay soo doortaan ama ay igu wali kursigan Jubbaland anagu taaseeto kuma qanacsanay wali anaga waxaan ku qanacsanahay kursiga aad ku fadhida in anaga ku fadhiisano kursiga aad ku fadhida in anaga ku fadhiisan markaas aan ku qanacsanahay ma anaga 5 kursi oo xildhibaan oo mushaar la siinaynin oo Kismaayo meelahaas ka joogo oo haban aan haysanin muxuu tar anaga waxas xildhibaan oo nin gaari gacan jiiday xildhibaan la yiraahdo anaga taaseeto waxaan tarmis kursiga aad ku fadhida dikada adiga waxaad kamaalaysid ayaan rabnaa in anaga meesha joogno fahanday anaga 5 kursi na siisay la laabo waxa ma rabno diyaar uma nin shacab weynana waan u sheegay aniga ka professor ahaan waan u sheegay dadkayga inaysan 5 kursi anaga ku qanacsanin ba sideedaba la laabo waxa ma rabno xukuumadda federaalka waxaan leeyahay ninkan uu ku xateenka laba meel ka qabta dawladda Kenya agaxda meesha ka saarto Ethiopiana waa ogtiin Abiy Ahmed message-kiisuna gaari doono inuu ninka taageer inuu sala siinin waxaan rabnaa hadana annaga qowmiyada la midabta koore jireer weyne hadda annaha nimankii oo jooga dibadda qurba joogtaan kamid ahay oo dadka maanta dibadiisa waxay ka bartaan aqoon-yahaninta maanta ay joogan oo dalka inay wax ay rabaan inay wax ka qabtaan waa in xukuumadda federaalka haduu rabo Maxamed Axmed Islaam uu rabo inuu la shaqeeyo shacabka Jubbaland haduu rabo inuu xukunka ku soo laabto waa inuu dadka xaquuqdooda inuu sinna inisman elborka wuxuu geeyay dadkiisa wasaaradaha dhan dadkiisa ayuu geeyay dikadaha dadkiisa ayuu geeyay guddiga maqlada Kismaayo dadkiisu kamid yahay saragaalka waaweyn waa dadkiisa meel walba dhulka iyo guriyasha iyo ganacsiyaha waaweyn waa dadkiisa qof kale oo dibadda ka imaama qof kale oo reer Jubbaland oo hal wax uu ku leeyahay meesha kama jirto dadkii labada guri meeshii ku lahayna guriyashii ama dhulkii ay ku boobaa waxana u dhiiba qoladiisa oo maartay oo kale imaad Raskiamboni marka anaga waxaan rabnaa xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Ali Khayre ninkan wada kale malaha waxa la yiri Swahili waxay kuma maheno kuna njia mingi za kuua panya wada fara badan ay jirta dooli lagu diro hadii san garuun loo qaadin koba loo qaada hadii sa kob loo qaadina mindi loo qaada hadii mindi loo qaadina aya loo daawa ama hadii ay loo daawina sumba lagu shubaa so wada fara badan ay leedahay oo dooli si lagu dilo idinka waa ogtiino reer Jubbaland dhaawac fara badan bay haystaan dhibaatooyin fara badan ay soo gaartay muddo fara badan meeshii ku dhaawacmeen hadda uma dul qaadan karno dulqaadka way dhamaatay annaga waxaan rabnaa dad annaga nala shaqeeya waxaan rabnaa dad annaga nug mabda nug siyaasad ah man la socon karo nin oo xaq jir ah xukuumaddiisa annagana hadda mana qanciyo wixii meeshii dadka joogaan gudahaba habeen iyo maalin way dhibtoodaan waana aragnaa dhibaatooyin fara badan meeshii ka soo socda ay ka imaatay marka insha Allah ta'ala waxa la yiraahdo professor Qaasim Maxamed Qaasim an aad baa idin salaamaya dadkii joogan Jubbaland anigu waxaan ku dhashay Jubbada Hoose waxaana dhashay 1980 waxaana jira 38 sano jir ah waxaan ka aqristay kow wadanka Kenya hadana Uganda ayaan jaamacad ka soo qaatay mar dhowan waxaan ka imaaday wadamada Yurubka hadana waxaan joogaa Nairobi hadartana waan duul waxaan u socdaa Ghana kulay arintan waa idinka idin sheegaya in ay maartu wax la qabto hadiisan waa idinka qaban karina wadamada Afrika IGAD iyo COMESA ayaga anaga dacwo ay u geenina ninkan dulan balaaran ayaan ku soo qaadina irki dhulka inaan ku soo darno
inti taas dhicin goor intay tahay arrintu waa in laga haltimaa agiixis waa inuu ka fiiriya ninkan anagu ninka xukuumadiisa waxba kama qanacsano aad ba idin salaama dhammaan shacabweynaha reer Jubbaland meel kasta aad joogtaan meel kasta aad ku nooshiin waa aniga walaalkiina Professor Qaasim waa idin soo dhaweynaa insha Allah markaan ka soo laabto safarkayga meel dheer u socda wadamada Afrika Ghana markaan ka soo laabto wixii shir meeshii ka dhacday iyo wixii meeshii warbixin ah waa idin keeni doona insha Allah wixii oo daliil iyo far badan meeshii ay ka soo jeedaan insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.